dadkan waxaa si arxan darro ah madaafiic ugu garaacay guryahooda iyo hantidooda maleeshiyada argagixisada ee al-shabaab haddase waa dhabbanayaal oo ma haystaan hooy cunto ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo ka damqaday dhibaatadii soo gaartay ayaa waxa ay mas'uuliyad gaar ah iska saareen in ay garaankooda ka soo jaraan raashin si ay u caawin lahaayeen dadkan ay maleeshiyada argagixisada ee al-shabaab madaafiicda ku garaacday guutada 14 Oktoobar ururkeeda 83 ee fadhigeedu yahay Janaale ayaa maanta si rasmi ah u soo gaarsiisay raashin waxa goobjoog ka ah maamulka deegaanka Janaale saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku sugan gudaha deegaanka Janaale qaar ka mid ah dadkii maanta la gaarsiiyay raashinka isla markaana ay kooxda maleeshiyada sida arxan darrada ah madaafiicda ugu garaacday ayaa goobta ka hadlay waxaana ay u mahad celiyeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed sida mar walba ay u garab taagan yihiin Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh ciidanka dalka Soomaaliya waxa uu mahad celiyaa gurigeyga maalintii ugu dambeysay hubiyad ugu dhacay asku dhacay ma faanti cid qoys oo hal qoys ku baabaaday saddex labo gabdhood iyo hal wiil oo ku wiilka xal 7 saac ugu dambeysay ma faanti ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan u mahad celiyaa gul ilaahayna siiyo walaalaheena waalidiinteena ilmaheena ay ku rafaadeen meesha hubiyo iyo balaayo waxaan hadda mahad u celinaynaa ciidanka dalka Soomaaliyeed oo garabna siiyay daawna siiyaan haddana macaawin noo keeneen sidii dadkeen naga xanuunsan ama aan ku daaweysan lahayn anagana ilaahay waxaan ugu baryaynaa ciidankeena inuu ilaahay guul siiyo saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku sugan Janaale ee maanta soo gaarsiiyay deeqda raashin dadkan ay madaafiicda ku garaaceen kooxda maleeshiyada argagixisada ee al-shabaab oo ugu horeeyo gaashaale Maxamed Nuur ayaa waxa ay sheegeen in mar waliba ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay diyaar u yihiin caawinta dadka shacabka Soomaaliyeed haddii ay ahaan lahaayeen in ay soo gaarsiiyaan deeq raashin dawo iyo wixii la mid ah qaabka shacabka maana nolol shaqeynay keentay kalsoonida in maanta raashinka deeq aan soo gaarsiin deeqdan oo iska soo gooyn garaamaadka ay ka soo jareen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan guutada 14 Oktoobar ururka 83 waxaan leenahay shacabka waxaan u sheegaynaa inaan mar walba aan garab taagnahay aan la taagnahay garabkooda hil iyo hol aan la taagnahay inaan macna marnaba aan aqbalaynin kooxaha nabadiidka ay dhibaateynayaan shacabka Soomaaliyeed inaan aqbalayn mar walba waxaan leenahay shacab kalsooni ku saahada kalsooni ku soo toos dhiigeena idan daadinayna wax walba naf iyo maal iyo waxaan hayno waa idin wadaayna waxa idin ka ballan qaadayna ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed aniga afkiis ku hadlay inaan garabkiina aan taaganahay har iyo habeen aan garabkiina aan taaganahay aan marna idin ileen doon wax walba aan baalka ii sheeg aan haynan gacanteen inuu wadaayn ama daawo ha noqoto mise raashin ha noqoto mise dhan walba ha noqoto waa idin caawinaya waa idin garab taaganahay ilaah baa mahad iskale maanta nagu kulmiyay dadkii cadawga uu kumaaday inaan soo booqan inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun horta Allahu naxariisto inta dhimatay inta dhaawacantana Allah ku siiyo waa geesiyaal u go'ay qaranka ayagoo shacabay u go'an haddana waxay ku dhiiradeen in guryahoodii shala hoobiyaha lagu garaacay maanta ay ku sii sugnaadaan annaga waxaan damqiyay oo garaamahayna uu soo goyno waxa waaye geesinimada intaas la shacabka noo muujiyay oo na garab taagan oo hariyaha nala shaqeynaya inayna ku qadin kan dhaawacan iyo kan nabad qaba